Jabhadda TPLF ayaa diyaarisay guddi wadaxaajood la fura dowladda Itoobiya sidaasina waxaa wakaaladda wararka AFP u xaqiijiyay afhayeenka TPLF iyadoo ay tallaabadani ku soo aadayso 20 bilood kadib markii uu dagaalku ka bilowday gobolka waqooyiga ee dalkaasi. Hadalkan ayaa imaanaya toddobaad kadib markii dowladda Itoobiya ay ku dhawaaqday guddi ka baaran dega suurtagalnimada wadahadallo nabadeed oo lala galo ururka TPLF, laakiin waxay caqabadi ka taagneyd go'aan uu xisbiga barwaaqo ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku adkaystay in wadaxaajood kasta ay hogaamin karaan Midowga Afrika iyadoo tallaabadaasi ay jabhaddu diiday. TPLF ayaa walaac ka muujisay u dhawaanshiyaha ergeyga AU-da horeyna u soo noqday madaxweynaha Nigeria. Waxay sheegtay in ay dooneyso in wadahadal kasta oo labada dhinac ah yeeshaan uu garwadeen ka noqdo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Waxa aan diyaar u noqonaynaa in aan wafdi u dirno Nairobi aanan dhisno guddi ay xubno ka yihiin madax sare, ayuu AFP u sheegay afhayeenka TPLF. Waxa ay noqonaysaa mas'uuliyad daro weyn in aan AU-da u xilsaarno dhammaan hanaanka wadahadalka, ayuu yidhi, isaga oo intaa ku daray in wadahadal kasta uu qayb ka noqdo Kenyatta, kaasi oo kaalin wax ku ool ah ka ciyaaray dadaallada nabadeynta. Guddiga dowladda ayaa waxaa madax u ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi iyo sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda.